idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyn tahay, kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaad haysanin, kuma xidhna inaad madaxta iyo inaad ahayn, kuma xidhna inaad cilmi badanta iyo inaad cilmi yartay. waxay ku xidhantao keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeedisa, directionka aad u jeedee raacaysa. ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa? waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya, adoo faqiir iyo adoo haysta iyo adoo maamuus laba. xagga naartana intaba waa lagu mari karaa. labadaa wadda inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leegtahay. dad badan oo maanta Soomaaliyeed iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaan bay garan waayeen. jahliga fadhiisiyay, beer si loo qoto ma garanayo, wax kale si loo sameeyo ma garanayo, aqoon si loo barto ma garanayo. jahli baa fadhiisiyay. jahligu markaa dadka wuxuu duleeyaa. aadamaha badhbaa isagoo jidka saxan iyo jidka qaldan kala garanaya, ogaan haddana ka qaldan u mara. waa kuwa kadeedan. qof garanaya wuxuu inuu xun yahay oo haddana samaynaya. waa kuwa aan adeegsanaynin ilaahay caqligu siiyey. waana dad badan waan waalayn, laakiin doqonnimo kala haysa. qofka aakhiro sababtiisa ilaahay kugu badbaadiyaa waa kaaga nafci badan yahay dunida ciddii wax ku tartoo dhan. waayo dunida waxay ku tareen waa wax 60 sano un lagu badbaadaa bay ahayd haddiiba ay wax weyn ku tareen. laakiin qofka aakhiro ku badbaadiya waxaad ku badbaadda kuu sheegay ama kuu tilmaamay ama ku tusiyey. noloshaadii dhabta ahayd buu badbaadiyey, cadaab ilaahay buu kaa badbaadiyey. nololaan dhammaan lahayn ayuu khayrkeeda ku tusay, sharkeedana kaa badbaadiyey. goob kasta joogo inaad wacdi u baahantay. xabaalaha in laysku wacdiyo, oo suuqa laysku wacdiyo, shaqada laysku wacdiyo, oo masaajidka laysku wacdiyo. waayo nafta bini aadamkaa tadabdub badan, bini aadamkaa weecweecasho badan, bini aadamkaa qumanidu inuu one line haystaa ku adagtay. one line inuu taagnaadaa bini aadamka ku adagtay. war dadku waxa qalbigaaga ku jira ma oga. ilaahay baan rumaysanayo tawxiid saxaan haystaa, kaasi adigu kugu kooban yahay, cid kula ogi ma jirto. adiga iyo rabbigaabuu idiin dhexeeya. dadku waxay garanayaan saad ula dhaqanto. dadku waxay garanayaan waa kaa akhlaaqdaada ama dadka diinta u soo jiidi, ama wanaagga u soo jiidi, ama firdhin oo ka durkin wixii loogu yeedhay. qof waliba wuu helayaa cid isaga ka liidata. مثلا haddaad adigu faatixada si fiican u taqaano, dadka waxa ka buuxa qaraa faatixada aqoon. dee kuwa haddaad u dhigto aadna ajarkii baad helaysa. idan qof aan wax sheegi karin ma jiro, qof aan wax dhigi karin, qof aan dad waanin karin ma jiro. ma raba inaad xamaal noqotid, waxaan rabaa qof wax bartay oo xogsan karaya inaad noqoto. at the same time waxaan rabaa inaad noqoto qof mabaadi iyo diin xambaarsan, qof dhaqan iyo dadnimo leh, qof wax rumaysan inaad noqotid. inta badan bini aadamku waa indha ku garaadle. wuxuu jecel yahay waxa uu sameeyo natiijadeeda inuu markiiba arko. laakiin dunidan ilaahay baa maamula. wakhtigu wax kasta uu qorsheeye uu qadarayna way dhacayaan. adigunbaa degdeg kugu jira.